The stars light up the sky. We see them flying free. That's just like you and me. Everyone is lonely sometimes, but I would walk 1,000 miles to see you rise. You are not alone, we're family. Hold me, let's escape all this reality. abaarashantii galabnimo ee maanta Dibley hubaysan oo ka tirsan kooxda shabaab ayaa weerar ku bilowday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa waxay ku qaadeen hoteelka Elite oo ku yaala xeebta Lido ee magaalada Muqdisho kaas oo xilligu weerarka dhacay ay ku sugnaayeen mas'uuliyiin dawladeed iyo dad badan oo shacab ah kadib qaraxa Dibley hubaysan oo gaaraya ilaa 4 ruux ayaa gudaha u galay hoteelka waxaana uu dagaal dhex maray iyaga iyo ilaalada hoteelka intii ka badbaaday qaraxa dagaalkaas oo ilaa hadda ka soconaya gudaha hoteelka inkastoo markii dambe ay si gurmada hoteelka u tageen ciidamada ammaanka gaar ahaan kuwa booliiska weerarka waxa ka dhashay dhimasho iyo dhaawac badan oo inta ugu badan wax uu sababay qaraxa koobaad oo lagu dhuftay derbiga hoteelka xilli barxadda hoteelka ay dad badan ay fadhiyeen dadka la ogyahay ee ilaa hadda weerarkaasi ku dhintay waxaa ka mid ahaa Cabdirasaaq Cabdullaahi Cabdi oo ahaa agaasimihii xiriirka gobolada ee wasaaradda warfaafinta Daahir Cali oo isna ahaa madaxa qaybta ka hortagga askaraynta carruurta ee wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya iyo xubno kale oo badan dadka weerarkaasi ku dhaawacmay iyana waxaa ka mid ah wasiirkii howlaha guud ee Galmudug Axmed Washington sawirqaade Maxamed Caraay oo ka tirsan wasaaradda warfaafinta Soomaaliya iyo fanaanada Faisabella oo iyadana ka tirsan kooxda Heegan ee ciidanka booliiska tirada dhaawacyada ilaa hadda la xaqiijiyay waa 24 ruux inkastoo tiradu intaas ay ka badan tahay markii uu qaraxu dhacay kadib jawiga goobta sidan ayuu ahaa قبطة نجي توسية وريد توسية نجي توسي وربركة تيجي تريد توسي وريد توسية بيتام بلاس لدو خان الله يا دوا بلاس لدو خان الله يا استدانة سان حاسدني مو سان ومد تبع له يا بلاس ملا بلاس ملا متولى واحد وحقنا ما تبكي كوم لا جي في بوان ورمر لمر فتحت لمر بس تبكي نوتوانا على غيره hadda wararka aynu ka helayno hoteelka la weeraray waxa ay sheegayaan in meydad badan oo hor leh hoteelka laga soo saaray iyada oo gaadiidka gurmadka degdega iyo saraakiisha caafimaadkuba ay wili wadaan la tacaalida dadka qaba dhaawacyada iyo daabulida meydadka sidoo kale ciidamada ammaanka ayaa iyaguna wili wada u gurmashada dadka ku go'doonsan gudaha hoteelka waxaana ay gudaha hoteelka ka soo badbaadiyeen ilaa dhowr ruux oo ku jiro milkiilihii hoteelka xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur qaar kamida dadkii la soo badbaadiyay waxa ay sheegeen in gudaha hoteelka gaar ahaan qaybta sare ay wili saaran yihiin dad badan oo shacab ah iyadoo halkaasi sidoo kale ay ku sugan yihiin ilaalada hoteelka oo dadka ka badbaadinaya Dibleyda weerartay hoteelka qof kamida dadkii la soo badbaadiyay ayaa isna nala hadlay الحمد لله ماشي خسارة وحنا فيلين إننا كدعي الحمد لله ددنا وكل إنتين ددا كباباي ددنا ولي جوده كجيران ددنا ويسوبت بعدين هلو سود عيادة هاي أنت اللي سوبت بعدين هذا كوارت اللي بشي دوا ما لقياس كروح عركي على ليو على الحمام ماشي تعالوا دد جوجو تعالي إنه قرحة ماشي لو رفتي كلي ددنا وسوق على المركب ماشي وسوق أركي دونتين كله ماشي واحد كدعي واحد قياس كرمها أو ما سنتين هذا اللي سوبت بعدين وتعرفت هذا تدوا تسانكنا shaqaalaha waa nabad qabaan intooda qaarna way dhinteen meesha ay yaalaan xaaladdu wali waa ay kacsan tahay faahfaahin dhabana lagama bixin karo waxa ka jira gudaha hoteelka 4 nin ee weerartay hoteelka ayaa la sheegay in laba kamida ay toogteen ciidamada ammaanka halka laba kalena ay wali ka dagaalamayaan gudaha hoteelka hadda afaafka hore hoteelka waxa ku sugan wariyaheena Mawlid Xaaji Cabdi Mawlid soo dhawow waxa faahfaahin naga siisaa hadda xaaladdu waa sidee هذا هو ما استمتعي سداد أديكو شيكتي حب كسو قررتي مجرته أو إنت سدر قلبتا اللي أبارو قلبنا مدي مانتا هي كوعوه بيسان وعيدوه قلن هوتيل كهلايت halka soo dad badan ay ku jireen hadda waxaan kugu firdin karaa in wadadaasi isla markaana hadda uu dagaal ka socdo
liifa saaran sida ay sheegayaan ciidamada booliiska ee halkaas ku sugan marka xaaladdu waa ay qasan tahay welina rasaasa socoto oo ciidamada waxaa kaloo jira in dhaawacyadu la sheegayo inay ka badan tahay 28 qof dhimashadan 15 la sheegayo wayna ka sii badan kartaa biyo meesha la yiraahdo oo u dhow hotelka Elite meedad door ayaa yaala oo halkaasi weli la raadinayo eheladooda teleefanadooda inta badan dadka ay ku jawaabayaan anigu ay indhahaygu qabteen oo aan arkay xilligaan goobta tagayay maqribadii qaar ka mid ah shaqaalaha hotelka Elite oo iyagoo cagamaran ka soo baxay hotelka isla markaana ay wadeen gaadiidka gurmadka degdega ee ambalaasta kuwaasoo gurmad loo fidinayay qaar ka mid ah hadda ku jiraan sida la sheegayo gudaha weli gurmada socdo rasaasna way socotaa xaaladdu way iska cakiran tahay marka wixii ku soo kordhay dhageystayaasheena iyagaa noqon doona kuwa ugu horeeya ee xogta hela insha Allah. kooxda al-shabaab ayaa sheegatay weerarkan waxaana ay sheegeen in hotelka Elite ay weerareen kaas uu leeyahay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya waxaana ay sheegeen inay ku dileen mas'uuliyiin dawladeed inkastoo dad badan oo shacab ah ay shabaab ku dileen.